shirka la shaaciyay ma ahayn mid boor ama laga shaaciyay saad adigu ba sheegtay maanta bisha 12 waxaana ogtahay inaan shir boor ama ka dhicin mana jira adeer shirka shir loo balansan yahay boor ama bisha 12keeda ilaa 20keeda iyo bishan iyo muddo kaleba oo wali la isla meel dhigo shir direeda boor ma wad ku nooshahay waxaan ognahay inay nabad tahay nabad inay taayna aaminsanay wax dhibigayna ka muuqan kana jirin iyaguna mid ha ogaadaan inaanay codkii sharciga ahaa ku fadhiin oo ummadda doorasho uun ha u ballan qaadaan iyo waqtiga ay qabanayaan laakiin wax nabad galya daraa ma ogin Sultan Xasan Muuse Cabbaas oo kamid ah madax dhaqameedka waaweyn ee Soomaaliland oo maanta keligii dambe warbaahinta kula hadlay magaalada Boorama ayaa waxa uu beeniyay wararka sheegaya in maanta magaalada Boorama uu ka furmay shir loogu yeedhay shirka beelaha direed. Bismillah. horta shirka la shaaciyay ma ahayn mid boor ama laga shaaciyay saad adigu ba sheegtay maanta bisha 12 waxaana ogtahay inaan shir boor ama ka dhicin kana soconin shirka miidiyuhum baynu ka aragnay dabaylaha waqtigan ku jirnuu buu eegay miidiyaha wax walba iskaga jiraan mana jira adeer shirka shir loo balansan yahay oo boor ama bisha 12keeda ilaa 20keeda iyo bishan iyo muddo kaleba oo wali la isla meel dhigo shir direeda ma jiro mana ogi mana maqli waxaan miidiyaha ahayn adinku kuba ka aragteen wax xamar aan moodayay inay ahayd sheekadu waxay ka baxaysaa suldaanku hadalkiisa waa uu si wato waxa uu ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee gobolka Awdal boorama wad ku nooshahay waxaan ognahay inay nabad tahay nabad inay taayna aaminsanay wax dhibigayna ka muuqan kana jirin marka laga reebo ciyaalada yar ee TikTok ama TikTok nabasoo doona u yeelay dibadaha ka duuduuba wax ama aqal kolkol taga waxaan ahayn ognahay ma jirto boorama waa nabaduna anaga danoo tooylaashanayno tanay madaxda ku celcelinayso hadaad leedahay maxay madaxdu ugu celcelisaa waxaan ognahay xukuumadda maanta jirta inay kororsiimo ku fadhido ayna codkii sharciga ahaa ee ummadda ku fadhiyay oo ka dhamaaday dhiminay ka jirto bariga waxaan isleeyahay oo qayrul calooshiisu ka shaqabay inay taawni ugu wacan tahay waxaan aaminsanahay inaa madaxweyne kala wareego aanan wadankaana la gelinaynin falso iyaguna mid ha ogaadaan inaanay codkii sharciga ahaa ku fadhiin oo ummadda doorasho uun ha u ballan qaadaan iyo waqtiga ay qabanayaan laakiin wax nabad galya daraa ma ogin mana jirto mana filayno waxaan aaminsanahay oo nimankana gacanta ku haynaa inaan anagu iska ilaalinayno wada soo jeedno habeen iyo maalin